bacdigeed waxaan rabnaa imaanka Afrika inuu ku soo dhaweeyo horta xildhibaanada deegaanka cagaaran marka bacdigeed xildhibaanada markay nala hadlaan ka bacdi odayaasha oo badan ka qaadan doona ka hadli doona la siin doona laakiin marka hore imaanku wax ka hadlo awalan soo dhaweynta hadalkan aynu Cabdul Usmaan oo ku hadlay magaca deegaanka cagaaran waxaan soo dhaweynaynaa si buuxda oo sharaf ku dheehan tahay oo tixgelin loogu soo dhaweynaa xildhibaanada dowlad goboleedka Puntland iyo cidii kale oo hay'ad hala shaqeeyeen ama iyaga hala shaqeeyeen dhammaan ku yimid kormeerka shaqo cagaaran ku soo dhawaadeen leena cagaaran waa gurigiini waa ka xukunteen waa ka wax ka jira inaad ogaataan xaq u leedihiin warbixin dhamaystiranna waa idinka siirina waa idinku soo dhaweynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi hadalku idinku idin furaya xildhibaanada السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يالي مرمون دماتين. وحن آدي آدم فرح سنة هاي إلى نساك سوق الري ما برقضة تنبع ديجانك باشا عقارن وكم إذا دقمة قال كعيو برشاد الدقنا أي برشاد بالله أنت هاي رنهانتي اسكونا ترشتي انت انا وكور قبنه inaan booqasho ku nimaadno oo wali waan aad ugu sifraxsanahay inaan noqono xildhibaanadii Puntland ku ugu horeeyay oo halakan booqasho rasmi ku yimaado xildhibaano kaliya hadda ma aha inta tani waa xildhibaano iyo agaasimayaal ka tirsan golaha wakiilada Puntland agaasimayaasheedii iyo miidiyaheedii iyo xildhibaanadeedii qaar ka mid ah marka haddaan anagu nasiib helay inaanu soo booqano waxa weeye booqasho loogu kala baxay gobolada in ka mid ah tanina ay ka mid tahay tii dhanka mudug lagu soo aaday sababaha haatan aada u dhaliyay inkastoo ay mudnayd awalba ay aada u mudnayd in la yimaado ay aada u mudnayd in booqashadooda la badiyo sababaha ugu daran haatan keenay waxa weeye duruufaha waddanka ka jira oo aada u ballaaran oo dhinacyo badan ah mudugna ay ugu nugushahay run ahaantii duruufaha ka jira waxaa laga ducaystaa ilaahow col iyo abaar baan kaa magan gallay dalka abaar baa haysata meelaha colku u dheeraaday oo daba dheeraaday oo ku riiqday oo soo jiitamay oo ku xoogaystayna mudug baa ka mid ah gaalkacyo iyo degaankeeda iyo degmooyinkeeda in ka mid sidaas darteed booqashada aan idinku soo booqanay waxaa weeye in aan xoogaal u noqono xaaladda cagaaran dhinaca amniga iyo dhinaca saameynta abaaruhu ay ku reebeen ama meesha xaalkeeda uu marayo annagoo hay-ada naguma jiraan waa barlamaankii wey ama xildhibaan ha noqoto ama ha noqdo agaasimayaal ha noqde waa barlamaanka Puntland oo si xilqaamay inuu xaaladda noocaasa ee waddanka ka jirta uu xoogaal dhaba u noqdo si maxaan ku idhaa uu u ururiyo dabadeedna loogu aadiyo meel allaale iyo meeshii wax ka qabadkeeda ku habboon yahay iyo si wax looga qaban lahaa markaa dawladdii lagula doono oo dawladda goluhu waa ka mid run ahaantii laakiin waxaynu u igmanay waa dhogteena waa xukuumad wey waxaynu waddanka u dhimanay xukuumadduna dadaalkeeda ayay iyaduna dee dhinaceeda ka wada marka labadaa arrimood in aanu ka aragno maamulka degaanka iyo dadweynaha odayaasha iyo hooyooyinka iyo dhalinyarada iyo cuqaasha iyo waxgaradka inay arrimahaas warbixin naga siiyaan weeye muhiimadda rasmiga ah si aanu u ururino dabadeedna aanu ugu gudbino meelaha ay ku habboon tahay insha allah wax ka qabadkeeduna uu yaallo aanu ka qorno report ka samayno qoraal la gelino
dabadeedna maxaan ku idhahdaa wax ka qabadkeeda si loo gudbi lahaa aanu markaa kula doodno meelaha ku habboon oo waajibka rasmiga ah aanu ku leenahay inaanu gaarsiino annagu haddii aan la yidhaah sidaas darteed waxaan idinku martinahay arrimahaas inaad war shaafiya naga siisaan haddii aan la yidhaah oo aanu iska warsano wixii aad naga tidhaahdaan iyo waxaad nagala socodsiisaan waxay saldhig u noqonaysaa waxaanu ka hadli doono haddii aan la yidhaahdo iyo waxaanu gudbin doono haddii aan la hadalkayga intaasaan kusoo koobi lahaa xildhibaanadu hadday wax ku darayaan kusoo dhaweynayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baad umahadsantihiin boqolkiiba boqol soo dhaweyntiinana waa mid aan naquuri karin maxaa yeelay maanta run ahaantii waxaad ku timaadeen fadhi qiimo leh oo tiro leh oo tayo leh oo isugu jira bulshada qaybaheedii oo dhan aad baan taasna ugu faraxsannahay boqolkiiba boqol wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka koowaad guddoomiyaha iyaga tiimka hogaaminaya intuu yiri baa hadalka macnihiisa iyo nuxurkiisu ku urursan yahay halkaan hadda 5 xildhibaan baan ku fadhinaa xildhibaan xuseen axmed nuur xildhibaan cabdixakiim macalin daahir xildhibaan cabdullaahi dogoole xildhibaan cabdulqaadir faarax bootaan xildhibaan raxmo cabdiraxmaan waa 5 tayadaan oo xildhibaano inta kalena waa agaasimayaalkii hadaala ku imaayo golaha baarlamaanka waxaan ku hadalkayo ku urursan yahay wixii colaadii dhacday ama haddaba jirta saameyn oo ay ku reebtay beeshaan hadda aan joogno iyo beelaha gaalkacyadoo dhan baan maragnaa waxaan halkaan ku rabnaa wixii colaadaas saameyn oo ay ku reebtay iyo abaarta hadda jirta waxa hadaala ku imaayo dad iyo dunyaba ay hadaala ku imaayo ku hayso weli way jidhay Allah inaga dulqaaday colaadii abaarta labadaa waxyaalood anagu ma nihin hay'adan uguma jiraan wasiirran uguma jiraan waa xildhibaanadii waxay u kurgalayaan dadka dhibaatada haysa iyo si warbixin urursan si hadhowta hadaala ku imaayo cidda ay qusayso loogu celiyo hadaala la idmo adinkuna marka hadal urursan odayaashiina gabdhihiina dhalinyaradiina hadal urursan oo hadalkaas hadaala ku imaayo baynii soo doonay baa laydinka rabaa hadaala la idmo xildhibaanadu 10 bay ahaayeen 5tii kale lafteeda inay yimaadaan bay u dhowdahay laakiin hadda waa naga maqan yihiin 5 yadaana hadda idin soo hormartay ilaahay maadiis intaasaan hadalka ka baxaya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxay la tahay reer cagaaran maanta waxaa la joogaa wakiiladoodii u dhaartay ayaga xuquuqda ay leeyihiin iyo mas'uuliyadooda wakiiladii u dhaartay baa hor fadhiya waxay la tahay maanta meel atalada kaga fara buuxsan ka dhan waad joogtaa waxaan kula dardaarmayaa waxaad ka tagtaan iyo waxayna ka hoos baxaan midnaysa jirin haddana waxaan kusoo dhaweynayaa maamulka deegaanka cagaaran si ay hadalka warbixintiisa ay inoo kugu hormaraan عبد السلام كسر دو فليتفضل. الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد أولا وحنا سلام يا حلم أنا ذا مثلاً أجاسمية شودا يو اللي معنا ذا كلام الدمان تود والسلام يا معكم سلام يا سلام الإسلام كا بعد السلام وبحنا دائما كسينو أروسان deegaanka cagaaran waa deegaan aad u ballaaran oo tuulooyin badan ay hoos yimaadaan bulsho badan na aad u joogto meelaha ay soo saameeyeen magacayga waxa la yiraahdaa Cabdisalaam Maxamuud Macalin baa la yiraahdaa magacayga deegaankaas dadka meelaha abaartu saameysay ama colaadu saameysay ayuu lambar 1 ka yahay colaadu waxay ku saameysay magaalada gaalkacyo waqtiga colaada ka jira ninka xildhibaano waa dadkii waxay ahaayeen ugu dhawaadad oo haddii colaadii iyo dagaalkii iyo dhibtii qoxii intoo ay saameyn ku yeesheen abaarahana sidoo kale deegaan ballaaran oo dad badan oo baadiyaha uga hareeraysan yihiin ay jiraan waxaa yimid dad badan oo ku soo barakacay oo xagga colaada uga soo barakacay iyo dad badan oo xoolihii ka dhamaadeen oo soo xarooday intuba aad bay u badan yihiin
tirakoob hadda gudoomiyaha ADB-ga la joogo wixii tirakoob iyo isaga noo sheegaya kaamka wixii kaamka soo galay isaga tirakoobka iyo aan u deynayna noo sheegaya laakiin waxaan ogsoonahay in aad dad u fara badan ay soo galeen dadkaasu ama ha ahaadeen dad ka soo barakacay gaalkacayo iyo colaadii ama ha ahaadeen dad baadiyaha joogay xoolihii markay ka dhamaadeen iyo waxay dugaalsanayeen meel ilmahooda iskala soo kacay hayba ahaadeen dad badan oo xataa waxaa jira deegaanka meelo ka baxsan ka yimid sida gobolada Itoobiya oo bari oo kaleeto dhankeeda soke dad ka soo kacay oo badan xoolihii dhaafeen ciidka waa jooga dad badan baa jooga aad baan ugu faraxsanahay xildhibaanadii Puntland oo u dhaartay dadkan inay noo yimaadeen aad baan ugu faraxsanahay aad baan u soo dhaweeynaa intaanu xildhibaanada oo maanta noo yimaadeen maanta ugu horeysay weeye xildhibaanadii way imaan jireen laakiin wafti intaan la eg maanta ugu horeysay noo yimaadaan weeye marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad noo timaadaan inaad nala wadaagtaan waxa aan qabno inaad ogaataan dadkiina ay abaaraha iyo colaaduba saameeyeen aad baad u mahadsantihiin aad baan u soo dhaweynaa deegaanka kan waxaa hoos yimaada 14 tuula hoos timaada magaalada Cagaaran iyo hoos timaada oo yar yara iyo kuwa horanba dadkaas meeshaan waxa u tahay population inta leeg dad badan baa iyo waxa u tahay center baa u tahay isbitaal baa ku yaala isbitaalka ku yaala iyo caafimaadka iyo biyaha iyo waxbarashada arrimaha bulshada ay la wada wadaagaan tulooyinka hoos yimaada deegaankaas intaas leego balaarkaas leh wax weyn oo gacana wali ma uusan helin ama xagga hay'adaha ama dawladda dhexe iyo dawladda Puntland midnaba aad baa ku yadhay saamayntaas marka aad baa u mahadsantihiin inaad maanta noo timaadaan ogaataan waxa deegaanka ka jiro xaqiiqada ah haddana waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha ADB-ga sidoo noo sheego u dhibayaa dadka soo qaxay intii leeyihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بعد السلام إلهي ومهدس كله مهد إلهي الحمد لله رب العالمين مرة بعد وكو سيدا وشيغي حزبان كان إلهي سيدا وشيغي ورنتي القادر دولة بطلان مدحوينو وانوي وسير وانوي مادين ولا حتى هو ينكسر تبر بالنوت ونصيب قارن ومرينا إياه حلبان الذي أها سعيدة كنت فلان وأودارتي أنا سعي وقصة أيام ديجانك كلنا تأكل أيام ومدة دين نوت وكان لا يوم هذه بغينا وحنو دين شجعنا إن باهي على قبله باهي هراء وأبارتك ورئيسي واقمنا ميدا أبارتك وسام سنة واقمنا أبارتك تبين هلا قمنا يقولون كم بدك وشيء جيو حلبان كل شيء جيو والدولة يتمنى كتورة لما أنتود ولا واحد يعني ولا كن نور تد كن نور حوله كتير سبب وبدناين وحنا الإسلام هاي حوله بقولك سديتن ويدافع حولها أنا كن نور حولها سنت الآن بيقبل المحيط بنتين حالة عبارته بردي حوله دافين ودك أنا حولها يسن وحي يبقى يرى هذا وحن في ليا هي الحلبان كل دومي هاي بيجا وريسرنا وحن نقول صوب بيري أنت هذا تركوب كذا أنا هينو بقول يكونتم قيس كامكا أجارن كسو بركعي وكوي هراء أنا هين في هراء تركوب كذي والله يا من مرينا يا بقول كن لح بقول يلا بتنقيس بالله قري قبل هاي دو صداي كقري هذا روح كسو بيري بقول يكونتم قيس أنت هذا ربنا بعدين كستنا ويسك صوت وقحية فهذا كتر تعجارن ما مد إلهي وحكا قبل كره فعلنا يحل بأنه إلهي بقى وحكا قبل كره لكن واحد كور بحير إنسان عجارن إلهي حالك حال إلهي يبان تيساك وأنا كم هذا اللي جاي ما تكررت بعدين
إلهي هذه الشرفة إلهي واحد لقبت فكير يا جماعة كام كعجارا واحد لقى قري هذا كهرباء واحد لسه حول أرورين معناها واحد لقى سو واحد لقى قري ودواجرين هذا بدلان كسعته نوعها كاممك يا واحد لقى قري كن يلعب بقول يلا وتقيس بقول يا كنت يسديد قيس نوع بس هذا يروي وايد ودتك أنا بعريه كسر دماد أنا حوري كسر دمادين ولي كام كدتك كنا والهدير أو ريال كام عقارن باليرا لو تربى وحول بحر تبارك بندنا لكن عقارن بندنا حوك رورتي وحال كام كاسر كام قالوا دقيقة شيء ميل مقالوا دقيقة وميل سداسة باهيدنا وامد في هوري بدلان يهايدوه واحد يسقال كأيه هيلتك waxaa laga dhisay meelo bannaan oo aan dawladda dadbad deganay baa guriga laga dhisay waxaa nooga yimid 102 sandaqadood oo bir ah dadka intaa tiro leh inta kale waxay ku jiraan buushas 103 sandaqadood oo bir ah baa waxay noogu yimaadeen sanadkii saddexaad aan tilgito 2013 dadkaas baahidaa hore waa qabnay guryaha aan waa qabnay cunto la'aan waa qabnay waxbarasho la'aan waa qabnay oo halkaan aad arkaysaan baa iskuulkaas ilmayaalka waaweyn noo yimaadaan baahida iyada hore waxaa ka mid ah hooy la'aantaas iyo cunto la'aanta caafimaad darrada intaasba kaamku gaar buu u qabay abaarta guud ee reer Puntland aan la qabno taasaa nooga hordarnayd oo 120 birood maalintiina qorraxday noo soo qabtaan habeenkiina dhaxantay soo qabtaan qofkii wuxuu noqonayaa marka waxaan awood lahayn buu noqonayaa ama qoys 210 qof ah areeri bay ku ahayd ma gabagabeynaya baahida la weydiinaya baahida dadkuna waa sidaas baahida kaamkuna waa sidaas waxaana idin ishaarayaa inaad wax badan ka qaban doontaan inaad noo qareemi doontaan inaad naga wargeyn doontaan inaad gobolka noola hadli doontaan inaad hay'adaha noola hadli doontaan inaad si islaamnimo noogu qaraani doontaan intaasaan idin rajaynayaa aad iyo aad baan maanta u faraxsanahay xildhibaano iyo agaasimayaal inta noo yimid la danta adinku aad maanta leedihiin iyo axwaashinu waxay tahay maanta ka hadla inta idaacada noo keenay horta waa markii koobaad aad iyo aad baad u mahadsantihiin inaad noo shaqaynaysaan oo aad cadaaladtiina waxay noogu muuqataa markii socodka ugu horeeyay haddii aad soo qaabisheen oo aad tiraahdeen meel kasta oo annagu ma hadaanu nahay xildhibaanadii Puntland iyo agaasimayaashii waxaanu ka shaqaynaynaa ay tahay dawladda Puntland shicibka Puntland waxaanu ugu adeegaynaa si cadaalad ah oo sharaf leh hadda tiraahdeen waa idin ka muuqataa annaguna waa idin la qaadanay waana idin dooran inta kadib waxaan rabaa laba waxyaalo labadaba inaan ka hadlo marka koobaad gaalkacyo waxaa ka dhacay colaad baahsan oo aad ogtihiin intii tirsigeed iyo tayadeedu ay leeg tahay colaadaas gaalkacyo ka dhacday inta aan u jirno waad arkaysaan oo de magaalo ahaan baan u xignaa wax yar yar baa naga xigo tuulooyin aan nacfi badan lahayn aan u xignay dadku aad iyo aad bay halkan ugu soo barakiceen ayagoo iska habqamaya qof waliba itaalkiisa iyo tabartiisu wixii macnaha ay ku yimid oo meeshan ku soo gaaray dadkii aad baa loo gacan qabtay si fiican baa loo soo dhaweeyay si fiican baa dadkii loo habeeyay loo dajiyay dadkii saa u soo barakacay waxna waa laabteen waxna waa joogaan marka dadka soo barakacay oo colaadu ay ka soo saartay guryahoodii sidaadana Soomaaliya colaad joogta ay kaba joogtay tii u dambeysana taa ay tahay wax qabad ah oo ay dawladda Puntland ay ku soo taageertay oo ay dadka kala daba timid ma jirto waxaanu rabnaa wixii haatan laabtayna in meeshooda lagu ogaado oo dhaqaale lagu siiyo wixii haatan halkan joogana si fiican ay wax qabad ay u helaan ilaa waayo dawladda ay hoos joogaan waa Puntland ayaga ay wax qabad ku leeyihiin ayaga ay maata u yihiin ayaga ay wax walbaba ay ku leeyihiin marka xuquuqdooda toos dadkaas inay helaan oo lala soo gaaro baan rabnaa tan abaaraha wadankii waad aragtaan waxa ka dhacay waa wax siman abaar siman la dhaho oo aan meelnaba dhaafin oo Afrika oo dhan saameysay baa wadankii timid abaartii noocaas ahay dadku wuxuu haystay maato waayo meeshan haatan la joogo cagaaran warshada kama shaqeeyaan
dawladda kama shaqayso dhaqaale lagama helo dadku waxay haysteen riyaha xunxunka iyo maxay geelaas dhowrka neef ah xoolihii noocaas ah dadkii way dhaafeen dadkii ayagoo baaba ah oo aad xaaladooda u liidato oo arrimahooda u culus yihiin bay waxay soo galeen magaaladii dadkii waa la gacan qabtay guryaha la geeyay maxaan ku dhahaa qof walba qof baa lagu lamaaniyay si degdeg ah wax loo siiyay adigu dadkii dad bulsho u joogta ummad badan oo soo barakacday dawlad ma aha shicib waxba kama qaban karo wixii dadaalkeeda shicibka reer cagaaran oo ku dadaalay waxaa la rabaa dadka soo barakacay oo abaaruhu ay xoolihii xoogaaga ay haysteen ay dhaafiyeen si fiican ayadana inay dawladdu ay wax qabad fiican ay u muujiso tan saddexaad waxaan rabaa inaan ka hadlo anigu waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka guddiga ADB annagu waxaanu nahay qaxootiga halka degan oo cagaaran feeriyaal qaxootigaasina haatan wuxuu dhisan yahay 8 sano wax qabad ah oo dawladda Puntland asagu u hoos joogo annagu dad muwaadin aanu nahay dad reer Puntland baan nahay xuquuqda ay ku leeyihiin kaamamka Puntland ka dhisan baanu leenahay si toos annagu ma helna xuquuqda aanu leenahay waayo meelaha kale dadku waxay helaan lacag joogta bay helaan waxay helaan dhismo joogta bay helaan waxay helaan raashin joogta bay helaan dadka halka ku xareysan oo wax xoolo haysta aysan jirinin oo dadkii wax koofur ka soo qaxay iyo wax hadda ka hor abaarihii yaryaraay oo wadamada ka dhici jiray ay saameeyeen ay ahaayeen oo halka ku soo xarooday wax ay dhaqaalaha oo ay dawladda Puntland uga yimid waxa jirta 102 sanduuqood oo hay'adda NRC ay keentay hay'aduhu waa noo yimaadaan iyagoo iska dareer ah haddana waxay noo qabtaan ma lahan way noo soo galaan waxbay nagu maxaan ku dhahaa buugaag bay naga buuxsadaan sawir bay nagala daalaan waxay noo qabtaan ayada aysan jirin bay halka ka baxaan hay'adii noo timaadana waxaan islaanaa alla ilaahay tii hor hadaysan wax keenin tan labaad waxa qabadkii iyo wixii shalay la idinka xareeyay baa maanta idin soo socda mana helno annagu waxaanu rabnaa maanta maadaama dawladda Puntland xildhibaanadeedii agaasimayaasheeda ay noo yimaadeen xuquuqdii annaga dawladda Puntland nooga maqnayd inaanu helno oo aad noo raadisaan oo ay si degdeg ah noogu keentaan oo dadkaana waxaanu halka ku xareysan oo tirsigiisu gudoomiyuhu tirsigu sheegay uu yahay waxaanu rabnaa xuquuqda dadkaas u leeyahay dadku waaba bay ku xareysan yihiin qorraxna meel ay ka istaagaan ma haysta dhaxanta meel ay ka galaan male duruurtu markay soo daado waaba la tagi jireen balliyaday ku dari jireen balliyada dadka noocaas waxaanu rabnaa oo maatada ay halka ku xareysan oo annagu aanu u nahay maxaan ku dhahaa gudoomiyaasha annagu in badan baanu dawladana u hoos tagnay hay'adaha u hoos tagnay wax qabada waxayba noogu jawaabaanba Puntland oo dhan baa idin la qabtay nalamana qabto Puntland oo annaga kaliya gaar nagu taa Puntland nalama qabto annagu waxaanu rabnaa haddaanu nahay kaamka cagaaran xuquuqdii uu lahaa oo dawladda Puntland uu ku lahaa annaguna aanu ku ahayn dad muwaadin oo reer Puntland inaanu helno oo si cadaalad ah ay noo soo waajibto وبالله التوفيق سيدا سنة بحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا تركوك كل صحة على إيكن خايش ما ينوء ربنا نباتي وعلاقة وأبارت سامين تلك وعلى ربما مرك هذا كل شيء دافن هذا الكلام اللي ما بعنا هذا الكلام تقول وساق أو عشان ليسان وحي سامين علاقة سيد هذا الشيء مالك إن الغير ورد معها هذا waxaan ku soo dhaweynayaa iimaan Iran oo iimaanka isku duubiye deegaanka cagaaras waliya tafadal mashruuca inta kadib khiyaaray aad baan idin soo dhaweynaynaa waxaan idin leenahay welcome here with open hands waa ku faraxsanahay xildhibaanadii deegaanka idinkoo ah inaad maanta noo timaadeen deegaanka colaad iyo abaar labadu waatay ka saameeyeen labadaba Allah inaga jabi colaad iyo abaar meel ka dhaceen meel sahlan maaha ilaa labada naga jooji ilaa nabadii raxmad bayna sii khiyaaray gaalkacyo waxaan u jiraa 33 kilomitir dagaal ka dhacay dadkoo dhan ay ku soo barakaceen in raadad badan ku reebeen nina la weydiin maayo dadkii dhimanayay ka mid bay ahaayeen wixii naga dhintay Allah naxariisto waxa bukana Allah inoo caafiyo haddii dhinaca abaarta aanu noqdo deegaankan waxaa hoos yimaada dhowr iyo 10 tuulo dhowr iyo 10 tuulo dadka ku nool dad reer guuraay bay ahaayeen oo xoolo dhaqataa xoolihii 70% dadka way dhaafeen
dadka boqolkiiba 70 xoolihii way dhaafeen wixii xoolihii ka wada dhammaadeenna way soo xaroodeen oo cagaaran bay dulsaar ku yihiin gacanna waxay uga baahan yihiin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala iyo dawladooda Puntland wixii kalena baadiyihii bay joogaan waxaan marka walaalayaalow Allah idin barakeeyo xildhibaanadayda tihiin inaad noo timaadaan oo soo ziyaarataan culayska deegaanka ka jira soo ziyaarataan aad iyo aad baan kaga mahad celinaa war shaqadiinii aan idin dooranay dadka wixii xoolo u hareen Puntland hadda meelaha roobab ka di'een in la isu raro fadhiga looga koro oo dadka reer guuraaga ah wixii xoolo u dhaqan yihiin loo badbaadiyo aan dadkii gidigii siman noqonay xoolihii wada dhaafin waan ku talinayaa wixii xoolihii dhaafeen oo deegaanka ku soo xaroodayna in il gaara lagu qabto oo gacan lagu qabtaan ayana waan ku talinayaa abaartii iyo colaadiina deegaanka way saameeyeen dadkan ka mid ah bulshada deegaanka ku nool sida wax u jiraan waa sidaas ayadii xukuumadda nooga doona sidaan u dhibanahayna waa sidaa u dhigan waa abaartii colaadii wayna saameysay qaxooti bay noo keentay agoomay noo reebtay bukaan bay noo reebtay markhaati ma doonta wey waa taagan yihiin natus haddaa tiraa way tusaynaa hadaad sawir iyo kamarad iyo filmaad ka qaadaysaana waa ka qaadi kartaa hor maa utiid waxaan leenahay qareemadayadiiow kuwii noo dhaartayow xukuumad iyo jeefkiina labadaba marti baanuna jeefkiina idinku aad leedihiin oo idin gaarka ah iyo ka xukuumaddaba marti baanuna sidaad noogu timaadeen oo haykalka muuqda oo xoogga badan oo sharafta mudan aan soo dhaweynay raadkiina dambe inuu kasii qurux badnaadaan jecela raadkiina dambe oo taga aad xukuumadda hor tagtaan ama hay-adaha samafalka hor tagtaan miro dhalka ay keenaan inay golo joogiinaan kasii qurux badanaa baan ka jecela waxaadna ka sugaynaan waa iyada intaasaan xaqidii ku leenahay idinkuna xaq waxaad nagu leediin sheegnay hadalkuna ajeendadii layna su-aalay waa intaa reer cagaaran oo ha lagu sugnaado yaan laga gudbin waxa gobolka iyo degmada iyo hay-adaha inagaga xiran saacaddan golofadhi looma aha waxaa golofadhi loo yahay abaarta maxaa idinku geysay dhaawaciisa dagaalka sabciidii geys wuxuu noo geysteen ayadoo kooban waa intaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa deegaankan ka jiray biyo hadda gobolku ay qaybiyeen oo iyo degmada maaq waxa qaybiyey oo loo qaybiyey dhowr booydood oo deegaanada deegaanka loo qaybiyaa jiray deegaankan cagaaran oo tuulooyinka hoos yimaada la idiin sheegay waxaa la siiyey 2 booydood 2 booydood baa waxaa qaadaa qaadoo meelageen 2 booydood markii aan qaaday kadib waxaa la biyo kala imaanaya haddana goobihii la geynayay in la soo arkaa muhiima waxaa kaloo tagay dhowr tuulo oo kale oo meelaha mataqaan u baahan biyaha sida waan gudud oo kale waxaa arkay baktigii geela iyo kuwii ariga isu geed harsanay oo qofkii xoolaha lahaana geed u dhow fadhiyo waa marxaladda abaarahoo jirta oo sida dhabta u jirta deegaanka ka mid mana helin wax biyaha waxayna ayagoo biyo doon bay halkan yimaadeen 3 maalmood 4 maalmood bay waxay sugeen inay helaan biyo la gaarsiiyey dadka meesha ceel kuma yaal barkad baa ku taal barkadina waa martay xoolihiina kuwa soo gaar halkan maaha kuwa meel kale u aroori kara ma deegaanana cagaaran bay yimaadaan sidoo kale waxaan tagay ruux oo aan 5 booyood ka qaaday oo biyaha oo loo qiimeeyo qoontada ruux la 5 booyood baahay cagaaran qoontada la siin waxay 2 booyood dhowr iyo 10 tuulan way yimaadaan dadkii deegaanka cagaaran hoos maay dhamaan wax yimaadaan cagaaran ayagoo biyo doon waxay maqleen biyaha lagu deeqay arrintaasi arrin waxay ilaahama gaara sababtoo is mujtamaci haddii 5 booyood la siixay hadda 5 good biyo wax dhanbe halay laakiin deegaan dhan oo 12 tuulo hoos yimaadaan 2 booyood biyaha hal la geeyay waxay noqotay arrin deegaanka laftiisa ma taqaana aan caqabad kale oo dheeraad ku soo noqotay waxaan in sheegay deegaanka waxaa jira abaar aad u baahsan midda Puntland ka jirta gaar ahaan goobaha hadda waxa weeyaan ay wax gaareen oo biyuhu gaareen kamid ma deegaanka cagaaran area dadka hoos yimaada cagaaran tuulooyinka cagaaran hoos yimaada meelaha biyuhu gaareen kamid ma waxa taa boyd dana halkay kamid ma markii laga reebo meel halkaan oo horkac ka sokaysa iyo kaamkaan uu degan yahay sheegeen reer markii laga reebo taas waa dhanka abaaraha weey wax maanta la iska wareysanaya waxa ogtahay muxuu sheegay weey dhanka colaadda waxaan la qabnaa reer Puntland inkastoo anu aan si daris u siinaa hadda waxaasaan ugu dhacay ma dhahayna moogti laakiin wixii dadka gaari baana gaaranayo wax kaloo dheeraad hadda aan ka sheegayna ma jirto intaa waxa weliya waxaan ku soo kordhay kaamkan ayay gabadhaasi anoo waa guddoon ku xidhimay oo guddoomiyaha ay mudan tahay ay ka hadashay
ilaa dhowr ilaa 10 qoys ilaa 30 qoys oo ka yimid kiilka shanaad oo ay ku soo dhaafeen hantidii oo aan qaar lacagtii ay baabuurta ka soo raaceen ka aruurinay halkaan gaariga ay soo raaceen markay soo raaceen yimaadeen ba waxay waayeen wax gaariga ay iska siiyaan lacagtii baan qaaraamano aniga aan ururinay oo aan bixinay waa dadka u baahan in sida mantaqana degdeg ah loo soo gaaro wax loo dadkaas hooy kuma jiraan geedaha hoos yaalaan waxa weeyaan gurxun oo jiingada oo hooyo iyo 10 ciyaal ku noolaayeen 10 ciyaal iyo hooyo kala geli karaan waa macquul ma weyn dadku marka dadkii soo kacayna way degan yihiin oo soo galkacay qixi ka soo baxay qayb aan laan baa jirta dadkii dambe oo wax weeyaan bakiyimid ama baadiyaha ka soo barakaceen ama dhanka kale ka yimaadeen way joogaan dhamaan arrimaha mas'uuliyadooda waxay saaran tahay xildhibaanada ayay cidii ko ay la kaashanayaan waxa yaro xagga abaarta aan ku darahaya abaarta ka jirta gobolka Mudug ama gaar ahaan deegaanka cagaaran iyo dhamaan Puntland iyo Geeska Afrikaba annaga hay'adii ugu sareysay 99.9 bay maraysaa deen 100% noqon hawayaanka duurjoogta ah magaalada kulligiis soo wada galay maalin weyd masaajidka magaalada bartankeeda ku yaala meesha loogu weysiisto oo ganjeel kale oo gudaha doofaarra laga celin waayo kaartoomadii magaalada yaalana asaga dhamaystay biyaan meel u dhigdhignado caruurii ay dadka waxaan ku nir faraha ka qaada meesha doonaha maray hadday dab joog tahay xoolihii miyay lagu haystay tahay iyo hadday duur joog tahay iyo hadday dadkii haystay tahay oo naf ku nool ahaa dhammaan iyo hadday kuwa duuloo shibiraa tahay dhammaan haddaad tagto matoorka waa tagi kartaane wax shimbiruhu kama maqna meelahaas station waterada laga cabo wax alla wixii noola ahaa bartii qoyanay bay isugu yimaadeen xaalad aan bini aadan waxba ka qaban karin baa xaaladaas u ekaa arrintaas arrin ilaah ma cid wax ka qaban kara jirin gurmad baa jiro bay noola muuqatay abaartu marka horta hay'adii ugu sarreysay 100% abay maraysaa xagga kale maalin dhaweyd oo aan soo booqday heeshaan waxay leedahay health center bay leedahay waa soo booqday agaasimahan arkay waa la sheekaysto waa wareystay wuxuu ii sheegay ilaa 25 caruur oo nafaqa darro laga helay inuu toddobaadkan gudihiisa oo reer cagaaran ah daawadaada isbitaalka taalaana ay gabaabsi tahay dadka imaanaya health centerkaasna uu aad fara badanayo oo xanuunada kala duwan sheeganaya maadaama aad hay'adii ugu sarreysay sharci dejinta hay'adda Puntland tihiin annaga imaatinkiin farxad dheeraad uu noo leeyahay in yar oo kale haddaan u noqdo annagu waxaan ka tirsanahay gobolka Mudug gaar ahaan degmada Gaalkacyo hadday horreyso abaaraha iyo colaadda ka horreysay iyo hadday ka dambeysay oo intaas bay yimaadeen aad baan wax uga tabanaa maamulka gobolka Mudug gaar ahaan degmada Gaalkacyo adina waxaad tihiin hay'adii ugu sarreysay sharcidinta imaatinkiinana waa ku faraxsanahay waana soo dhaweynaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu labada qodob oo ugu muhiimsan iyo weliba warbixinta kale oo aan siiseen oo ah annagoo golahiinii wakiiladaan u nahay deegaan ahaan annagoo golihii wakiilada Puntland ah baan waxaan informationka aanu bixiseen uu yahay mid aanu la tegi karno ama kala duuli karno wax kasta oo haqabtirada muhiimaduna waxa weeye in baahida jirta aan inala ogaano waxa dhacay Soomaalidu waxay tiraahdaa rag walba waa ku rageeda macnaheedu waxa weeye wax kasta oo yimaado hadda abaartan iyo colaadan horta Ilaahay baa dadka ka saari kara Ilaahay baa quraankiisa wuxuu ku yiri ma asaaba min musiibatan fabima kasabat aydiikum wa ya'fu an katira in Ilaahay loo noqdo weeye marka hore marka dambana xogtiina iyo dhamaan waxyaalaha aan siiseen oo informationka buuxa aad baa ugu mahadsantihiin hadday noqoto maamulkii warka bixiyay hadday noqoto odayaashii iyo imaamkii Afrika iyo nabadoonnadii iyo xogta fiican siiyayba waa xog biri ka maalin aanu la duuli karno annagu wakiil baan iniina muhiimadu waxa weeye
in waxa ina haysta baahideeda iyo caqabadaheeda aanu ogaano kabacdina aanu gudbino oo aanu gaarsiino meeshii loogu talagalay haddana hadday inii bilowmatay oo xaaladda hadda amniga iyo xaaladda colaadda jirtay oo aad sheegteen in dad badan oo barakacayaala iyo dhibtii dadkii ku dhacday ka mid yihiin beelaha degan cagaaran waxaanu aad baad informationkeeda noo siiseen midda labaad hadday noqoto dhinacii ma garanaysaa abaaraha waa sheegteen oo weliba saas oo ay tahay idinkoo aan waxba ahayn baa waxaa noo sheegtay inaad ka qayb qaadateen oo dad ka yimid dhinaca iyo Ethiopia aadba wax u aruuriseen taasna waa ku mahadsantihiin waa wax awalba layna ku yaqaanay hawshana inaad saa ka sii wadaan annaga ka xildhibaan ahaana maadaama ay tahay markii ugu horeysay oo aanu nahay waxaani waa dadka yimid tihiin muhiimaddu waxa weeye informationka inaanu la noqono oo wadaag oo macnaheedu ah wax kasta oo jira inaanu wax ka ogaano hadda maamadu informationka ayna siisay oo iyadana meesha ka jidha waa wax loo baahan yahay berri ka maalin inaanu gaarsiino meeshii loogu talagalay waxaan marka ku soo gabagabayn lahayn xogtiinii sharafta badnayd ee qiimaha badnayd ee aan noo soo gudbiseen idinkoo bulsho kasta iskugu jira inaan ilaahay hadduu idmo meeshii loogu baahnaa aanu gaarsiin lahayn qodobka labaad waxa weeye waa mahadsantihiin wax kastana insha Allah wada jir baan wax ku wada qabanaynaa ilaahay hadduu idmo dhinac kastaba ha ahaatee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرع عقارن وأنا أدو هم هالعلي نسلي عاد يوسد ويسين ما عاد نوقد السين هنا الدين صوب وغنبو وشرع يلا دينو ويمسيسين سوى عن ونكسن أيانو ذي كلام هالعلي لنا وحان أدو فرح سنة وربحين وها عاد ديبتين دروب ملهين waxay ahaayeen wax aad iyo aad loogu wada baahnaa gobol aanu u soconay oo aanu qeexnay xogihii ka dhambalmay aad iyo aad bay u fiicnaay laakiin waa ku yatoodeen inaad ururisaan boqolkiiba boqol gudoomiye ku-xigeenka IDB-yada gabadha hadallo qiiro leh oo qiimo leh oo aad iyo aad wax ku qaadasho leh ayay u soo jeedisay iyada iyo raggii kale oo hadlay intuba hadalladooda ma kala dhicin waa ku faraxsannahay urid ma lahayn mana aan mana qiimo dilayno oo mana qiimo dili karno maxaa yeelay ayagaaba qiimo laha waxaan la soconnaa dhibtatan abaaruhu markii ay daba dheeraatay oo roobkii la sugayay la waayay xukuumadda Puntland shirar bay gashay markaan taa warbixin idinku daro warbixin bay gashay dhaqaalo fiican bay ku deeqday ganacsatada loo yeeray abaaraha lagala hadlay sidoo kale ugu deeqeen guddiyaan la magacaabay waddanka lagu kala baahiyey ayaabihii u daraana biyaha iyo unbay ahaayeen oo laga tilaabo qaaday laakiin waxay ahayd goor la riiqday bay ahayd markaan runta sheego gobol kasta oo ay taallay been ka sheegi mayno wixii ilaahay qadaray baa qadarmay inaynu samirnaan loo baahan yahay sida cabdixakiim sheegayay xildhibaanku waxaynu inagu isu geysanay boocaro ilaahbay ku dhacday dhibaatana kuma timaado bulsho kuma timaado haddii aysan kasbanayo aayadaha qur-aanka inoo sheegay sidaas darteed arrimaha aadna siiseen waa ku faraxsanna arrimaha xogta aadna siiseen waa u baahnay tabashada gobolka aad ka sheegaysaan sabtidaan la ballansannahay waa idiin sheegaynaa sabtidaan la ballansannahay arrimaha aad ka tabanaysaan iyo cabashada aad ka soo jeediseenna waa kala hadlayna haddii alla yidhaha waxbana waa ka weydiinayna insha allahu tacaala ayadana maxaa iyada kuwa saaba noogu sokeeya hadda intii kale korgooda naga jirtaa ayagaan ku bilaabayna haddii alla idmo wallaahi waa ka cunaa deegaanka labada booyadeed kale la yidhi hawa waxeeya oo ninkaa odagu soo jeediyey aad baan ugu xoogay marda waddankeena booyadaha marka ku yar baan u qaadan karnaa waxa kale aan odhan karo ma jirto
hagrashad ma ahayn baan isleeyahay boodaha waddanka ku yar hadday badan yihiin meel buu lagu arki lahaa baan u malaynaya taasna sidaa inaa u qaadataan weeye aada iyo aad baa u mahadsantihiin waxay noqonaysaa insha allah sidayna ku bilaabatay booqashadu waxaan ku dadaalaynaa haddii aan la yidhaahdo in aad ka daawataan waxaad ku hadasheen iyo muuqaalkiinaba telefishinada iyo idaacadaha insha allahu tacaala dhammaanteen sida ay markaa mas-uul kasta way gaaraysaa hortiisu indhihiisu ku arki doonaa wuu ka hadli doonaa qoraalka iyagu wuu tegi doonaa dabadeedna insha allahu ka hadalka iyo horfariisuguna waa meeshan iyo doodeeda mararkaan hadda kala baxaya telefishina idaacada keliya ka bixi mayaan horey baan idinku sheegay maalmoodiya markii hore waxay ka baxayaan oo kaleeto oo toos u gelayaan oo maanta loo diraya oo maanta ku dhacaysa waxa weye webka baarlamaanka puntland xubin kasta oo puntlandana way hortegi doontaa dibadaha oo dhanna waa laga daawanaya dhammaanteed asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iyo xataa